dhacday wixii ka dambeeyay xiisadda ka jirta Israa'iil iyo Iiraan in isbeddello badan ay socdaan. Isbeddeladaas ayaa Ruushka waxay ku qasabtay in uu dib u qiimeyn ku sameeyo waxyaabaha uu ka samayn karo waddanka Suuriya. Samiir al-Abdallah oo asna agaasimo ka ah xafiiska la faguro arrimaha siyaasadda xarunta carabta ayaa waxa uu cilmi baaris ku sameeyay arrimaha Suuriya, wuxuuna sheegayaa Ruushka in mowqifkiisa aanan lagu khaldamin oo aan ahayn dhexdhexaad, waxayna tilmaamaysaa hadda dariiqada uu qaatay in uu door bidayo inuu arrimaha kor kala socdo halkii uu si toos u fargelin lahaa. waa garta marka haddaynu dhinaca kale ka eegno ma lisdhihi karaa Ruushka hadda wuxuu mashquul ku yahay dagaalka Ukraine oo markaas waqti iyo awood uma hayo waxa ka socda dalka Suuriya iyo bariga dhexe? arrintaas waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee Ruushka xadidaysa in lagu dhex arko Suuriya iyo arrimaheeda. waxaadna moodaa in Ruushka uu hawl weyn ka wado oo shaqo badan u baahan waddanka Ukraine gudihiisa, iyadoo colaaddu ay jiidatay ayaa dagaalka ka socda Ukraine waxa uu u baahan yahay siyaasiyiin, military iyo dhaqaale fara badan. sababahaas ayaana ku riixaya waddanka Suuriya in ay hoos uga soo dhacdo liiskii waxyaabihii u xiiseyn jiray waddanka Ruushka. Ruushka ayaa hadda waxaa cadaadis badan iyo cunaqabatayn uu kala kulmaya wadamada reer galbeedka. waxaa ayadana soo taraysa wadamada NATO inay si weyn u taageerayaan Ukraine iyo caqabado cusub oo culus oo xagga ammaanka ayaa Ruushka la soo gudboonaaday. Mareykanka ayaa cadaadis soo taraya bilaabay ilaa iyo bartamihii bishan July, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu digniin ku bixinayo in cunaqabatayn dheeraada uu saari doono wadamada saliidda ka gada waddanka Ruushka. isla markaasna waxay dardargelinaysaa in Mareykanku isku dayo inuu go'doomiyo siyaasad ahaan waddanka Ruushka. sida laga soo xiganayo Amjad Jibriil oo asna xiriirka caalamiga cilmi baaraka ah ayaa waxa uu leeyahay Ruushka hadda wuxuu arkaa Suuriya inay tahay kaar ujeedadii uu ka lahaa markay xagga siyaasadda caalamka timaado uu ka gaaray. hadda mudnaanihiisa waxaa muuqata inuu dib u qeexayo marka ay timaado isxulafaysiga socda. waxa uu ka doorbidayaa inuu xiriirka ula leeyahay Shiinaha, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi uu xoojiyo halkii uu gobolkan Shaam uu mar hore calaamadaystay oo muddo badan u deganaa. weli codad badan oo waxaa jira siyaasiyiinta Ruushka galgalka ku leh ka soo yeeraya oo ah in lagu gacan sayrayo dacaayadaha la xiriirta in awooddii Ruushka ay hoos u dhacday waddanka Suuriya ku lahaa. Rami Shair oo la taliya dowladda Ruushka gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu ku doodayaa Ruushka weli howlo istiraatiiji ayuu ka wadaa gobolka bariga dhexe gaar ahaan Suuriya. ma aha tan macnaheeda dib u gorasho waxa weeye istiraatiijiyad dib looga fakarayo waxyaabaha ay tahay inuu bariga dhexe ka sameeyo Ruushka oo awood weyn oo nuclear ah ayaa soo aragta in ay u baahan tahay in waqtigan kala guurka oo caalamka uu galayo isbedel cusub oo hogaamiyaal wadamo badan oo hogaamiyaal caalamku ay soo baxayaan in uu waxyaabaha kale ku mashquulsan yahay. waa garta isla arrimahaasi ma dhaba in sababaha Ruushka uu aaminsan yahay ay tahay inuu og yahay in danihiisa Suuriya ay meel u saaran yihiin oo uusan qabin wax walwal ah? dhanka Ruushka marka laga fiiriyo hadafyadii uu waddanka Suuriya fargelintiisa ka lahaa kulligood waa lagu guuleystay. waxaa ka mid ahaa in saldhigyada militariga uu ku leeyahay waddanka Suuriya in ammaankooda la xaqiijiyo, Ruushkana ay sii joogaan. xukuumaddii uu gacan saar kala lahaa ee Ruushka uu taageersanaa markay meesha ka baxday hadda waxaad moodaa in weli uu ku sugan yahay waddanka xukuumaddan cusub xiriir la yeeshay. sababtaas ayaana ka dhigaysa Ruushka in badda Mediterranean-ka uu yahay awoodaha waaweyn ee ku hardamaya mid ka mid ah. saldhigiisa militariga ee Hamamiin la yiraahdo ciidanka cirka ayaa hadda waxa uu yahay goob istiraatiiji ah oo ay sahayda u marto Ruushka. ma aha kaliya Suuriya, xataa howlgallada uu Ruushka ka wada Afrika iyo gobollada kale ee bariga dhexe ayaa loo adeegsadaa.
marka laga gudbo in isbedelo ay ku yimaadeen wadanka Suuriya ruushka saraakiishiisa weli waxay ku nuuxnuuxsanayaan in iskaashiga Suuriya la lahaayeen uu socdo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka ruushka Sergey Vershinin ayaa xaqiijinaya bishan Juulaay aan ku jirno ruushka in uu weli xiriir wanaagsan leeyahay xukuumadda Suuriya oo uu kala xiriiro wax walba muhiim ah gaar ahaan marka ay timaado arrimaha la xiriira saldhigyada militariga uu leeyahay ruushka wadanka Suuriya Samir al-Abdallah oo ra'yigaas taageeraya ayaa asna waxa uu ku nuuxnuuxsanaya isbedelada siyaasadda Suuriya ka socota wixii ka dambeeyay Bashar al-Assad ma aha mid khatar weyn ku ah ruushka iyo danihiisa gobolka ruushka ciidamadiisana hadda weli waxa uu ku sugan yahay goobo istiraatiijiga oo ay ka mid yihiin Qamishli garoonka diyaaradaha la yiraahdo sidoo kale ruushka waxa uu xaqiijinayaa inuu weli lug ku leeyahay arrimaha shidaalka kaabayaasha iyo qandaraasyada xagga hubka ah welina waxaad moodaa in ay jiraan hay'ado caalami ah oo ruushka waxa uu meesha ka sameynaya si dhow la socda waa gartay marka ma dhici kartaa in sababaha ruushka uga maqan yahay saaxadda ay tahay in siyaasadda Suuriya ay dhinac kale u wareegtay sharaxaad kale oo laga bixinayo ruushka sababta uu doorkiisa u yareynayo markay Suuriya timaado ayaa lagu sheegay Suuriya inay u jeesatay dhinaca reer galbeedka hoggaankan cusub ee maamulka la wareegay ee wadanka Suuriya ayaa mas'uuliyiintii siyaasadda qaabeyn jiray ruushka kamid ah Mikhail Bogdanov la yiraahdo ruushka muddo dheer ayuu wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe hadda laakiin waxaa muuqata in ninkaasi uu meesha ka baxay qaabkii gobolka uu la tacaamuli jiray wadanka ruushkana isbedel ayaa ku yimid sida laga soo xiganayo Igor Sabrosov oo cilmi baare ah ka tirsan maxadka daraasaadka istiraatiijiyadda markii laga saaray meesha ergeygii gaarka ah ee ruushka waxa isbedel ku yimid siyaasaddiisa arrimaha dibadda waxaadna moodaa isbedelkaasi inuu saameyn ku leeyahay gobolka bariga dhexe waxaana hoosta laga xariiqayaa in xukuumaddii Suuriya habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka caawa barnaamijkan gabi ahaanba waxaan ku soo qaadanaynaa waxa isi soo taraya weerarada lagu siifeeyay gardarada ee Israa'iil ku hayso dalka Suuriya iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay Israa'iil ay xoojisay duqeymaha ka dhanka ah ciidamada iyo xarumaha militariga dalka Suuriya xaaladan ayaa laga cabsi qabaa inay isku bedesho dagaal buuxa iyadoo laga digayo in Israa'iil ay ka faa'iideysato xaaladda Suuriya ama iska horkeento shacabka iyo nidaamka cusub ee dalkaasi Mareykanka Turkiga iyo Ruushku waxay ka mid yihiin dalalka ciidamadu ka joogaan Suuriya isla markaana saameyn ku leh arrimaha siyaasadda iyo ammaanka laakiin tan iyo markii xiisadan cusub ay soo baxday waxa loo jeedin saameyntii Ruushka waxa ay jeexatay wado ay dhexdhexaad ku tahay marka ay timaado arrimaha militariga iyo arrimaha siyaasadda ilaa iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo gashay dagaalkii sokeeye ee wadankaasi ka dilaacay 2015 haddana waxay u muuqataa in xukuumadda ruushka ay dib uga goratay doorkii weynaa ay lahayd oo uu noqday doorkeeda mid naxuus ah ayna arrimaha ka fiirsanayso sheeda aamusnaanta ayaa su'aalo badan dhalisay maxay tahay sababta ruushka uga maqan yahay arrimaha siyaasadeed iyo arrimaha ammaanka ee hadda Suuriya ka jira maxay tahay ruushka sababaha uu dib ugu gurtay ma waxaa laga yaabaa in istiraatiijiyadiisa ka baaran degayo oo uu rabo inuu qariido cusub jeexdo waa gartay maadaama ruushku uu horay xiriir ula lahaa Bashar al-Assad ma wuxuu hadda doonayaa inuu dusha kala eegto xaaladda sida u kala socoto ruushka xiriir kaliya lama lahayn Bashar al-Assad ruushka waxa uu lafdhabar u ahaa xukuumaddii Assad iyo sidii ay uga badbaadaysay mucaaradkii faraha badnaa ee ku duulayay iyadoo military fara badan uu ruushka ka joogo goobo ay ka mid yihiin xamiimiin oo saldhigga ciidanka cirka ee ruushka uu ku yaalo iyo ciidanka badana ay joogaan degada Tartus la yiraahdo saameyn weyn oo ku lahaa arrimaha diblomaasiyadeed ruushka ayaa waxa la leeyahay waxaas oo dhan iyadoo jiraan
ayaa hadda xiriirkan cusub ee lagu caadiyeynayo Suuriya iyo Israa'iil iyo isbeddelka ku yimid siyaasaddii Suuriya ee gudaheeda iyo xiisadda kacsan ee Suweeda ka jirta iyo waqooyiga bari ee Suuriya ayaa Ruushka hadda waxaad moodaa inuu arrimahaas oo dhan si oola kaca uga aamusan yahay. aamusnaantiisu ma aha oo keliya mid muddo kooban soconaysa, waxay qayb ka tahay isbeddelka istiraatiijiyadeed ee gobolka ku yimid. lafagurayaasha ayaa waxay tilmaamayaan tani waxay muujinaysaa in isbeddel uu ku yimid Ruushka danihii uu lahaa uu mudnaanta siinayay. waxaadna moodaa in hadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibaddaba uu Ruushka cadaadis ka saaran yahay, iyadoo Ruushka isbeddel weyn oo xagga siyaasadda caalamka ay ku socoto, isagoo dardargelinaya inuu bartilmaameed ka dhigto cadaadiska colaadeed ee waddanka lagu hayo cunaqabataynta iyo dagaalka Ukraine. waa gartay, marka mala oran karaa arrimahan waxa ugu wacan siyaasad cusub oo Ruushku qaatay? Ruushka ayaa galgalkii uu ku lahaa Suuriya hoos u dhigay, waxaadna moodaa inay qayb ka tahay isbeddelka ku yimid siyaasadda bariga dhexe. taariikh ahaan Ruushka waxa uu ahaa waddan ka mid ah wadamada awoodda weyn ee tooska ah ku leh, siyaasaddiisana waxay ahayd in uu saaxiibadiisa caawiyo, laakiin hadda waxay u muuqataa inuu door bidayo taxadar iyo diblomaasiyad aamusan iyo inuu arrimaha kor kala socdo si uu u ogaado waxyaabaha ka socda gobolka iyo waxyaabaha la sameynayo. waxaa fariin cad ah isbeddelka oo ah in meesha laga saaray nin weli waxa uu raadinayaa in uu xiriir la yeesho Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka oo ay ka mid yihiin Turkiga, Saudi Arabia iyo waddanka Sultanka Imaaraadka Carabta. sababaha ku kallifan inay yihiin inuu dhaqaalaha xaggiisa soo kabta rabo, dib u dhis in loo sameeyo waddanka uu rabo, iyo in taageero caalami uu helo. dowladda Mareykanka ayaa hadda waxay dardargelisay howlaha siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ee Suuriya ka wado. dowladda Mareykankana waxa ay dabcisay cunaqabatayntii saarnayd Suuriya oo dhinacyo badan ka dabcisay si nabadda wadadeeda loo qaado oo xiriir ay la yeelato iyo heshiis Syria la gasho waddanka Israa'iil, iyo in mustaqbalka Suuriya lagu xiro wadamada kale ee gobolka xagga ammaanka marka ay timaado, iyo iyadoo dhinacyo badan istiraatiijiyad leh ay socoto ayaa Ruushka waxaad moodaa inuu arkayo waxaasi reer galbeedka ay wadaan. Ruushkana waxaa u muuqata Suuriya in ay u baahan tahay xasilooni iyo in dhaqaale ahaan ay kobocdo. Amjad Jibriil ayaa waxa uu sharaxayaa Suuriya ayaa waxay u aragtaa reer galbeedka inay yihiin cidda keliya awoodda u leh in cunaqabatayntan naafaysa waddanka Suuriya laga qaado suuragelin karta, iyo inay albaabo u furto dib loogu dhiso waddanka Suuriya. Ruushkana hadda awood uma laha in uu waxyaabahaas ka qayb qaato. arrimahana waxaa dardargelinaya ma aha diblomaasiyadda. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa labadaba waxay taageerayaan mashaariicda horumarneed ee xukuumaddan cusub ee Suuriya, waxayna gacan ka geysanayaan sidii heshiis ballaaran loo gaari lahaa. waxaana aad moodaa in xagga dhaqaalaha ay ka kaabayaan xukuumadda Suuriya goboladeeda oo muddo dheer horumarkooda u gaabis ahaa iyo burburka uu dagaalka keenay. tallaabooyinkan oo dhan ayaa hoos waxay u dhigaysaa in Suuriya ay ku tirsanaato Ruushka iyo Iiraan. barnaamijyada Mareykanka ee amniga qaranka daraasaad la sameeyey bishii May ayaa tilmaamaya in isbeddelkan ku yimid arrimaha istiraatiijiyada ee dib loo qaabeynayo ay Suuriya gelinayso siyaasaddiisa waa cusub, iyadoo aad u sii kordhayso aragtida Ruushka xaggeeda ah oo ah in uunan rabin in uu door xudun ah ka qaato arrimaha Suuriya. Ruushka ayaa arrimahan sheeda ka fiirsanaya, ma uusan ka tegin baa laleeyahay arrimaha Suuriya, laakiin markii laga gudbo isbedelada socda Ruushka meesha kama maqnaa. la taliyayaasha aqalka looga taliyo Ruushkana waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan Ruushka arrimahan si dhow ayuu ula socdaa, wuxuuna u arkaa Suuriya inay tahay dowlad madax bannaan oo ikhtiyaar u leh ciday rabto inay heshiis la gasho, ama Mareykanka ha noqoto ama Israa'iil ha noqoto. Rami al-Shaa'ir ayaa asna hoosta ka xariiqay in Ruushka uu xushmeynayo qawaaniinta caalamiga ah iyo
xeerarka qaramada midoobe uguna baaqayo Israa'iil inay ka gurato buuraha Golan oo ay ka qabsatay wadanka Suuriya bishii Maaj. Ruushka ayaa ku gacan sayray oo la soo saaray qaraar ama qoraal dowladda Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobe lagu cambaareynayo rabshadaha Suuriya ka socda deegaanada xeebta ku yaala. Ruushka ayaa sidoo kale weli waxaad moodaa xiriir weyn oo xagga diblomaasiyadda ah inuu qaramada midoobe ka wado oo uu ku taageerayo xukuumadda Suuriya inay tahay dal madax bannaan ay tahay inaan la kala burburin sida uu al-Sheer uu sheegayo. howlaha uu Ruushka wado waxay muujinayaan inay yihiin kuwa muhiima, laakiin waxaad moodaa si tartiiba oo aamusan oo qaanuuni ah inuu howlihiisa wato. waa gartay ugu dambeyntii ma la is oran karaa in maqnaashaha Ruushka uu yahay xeelad istiraatiiji ah halkii uu loo qaadan lahaa dib u gurasho Ruushka uu sameeyay? waxaa caddaana ka maqnaashaha Ruushka ee arrimaha ka socda wadanka Suuriya inayna calaamad u ahayn in Ruushka laga adkaaday iyo inuuna xiisaynin. natiijada waxay tahay dib u qaabeyn istiraatiijiyadeed ayuu Ruushka wadaa maadaama caalamka arrimihiisa isbedelayaan. waxaana muuqata in Ruushka waxyaabaha socda ee dhulka ka socda Suuriyana si weyn ayuu la socdaa. wuxuuna xaqiiqsaday hadafyadiisa asaasiga ahaa. ciidankiisa waxay ku sugan yihiin Suuriya, saameyn ayuu gobolka ku leeyahay. xukuumaddan uu saaxiibka leeyahayna waxaad moodaa inay shaqaynayso. Ruushkana waxa uu door bidayaa in uu arrimahan sheeda ka fiirsado halkii uu xudun u ahaan lahaa arrimaha siyaasadeed ee dib loogu qaabanayo wadanka Suuriya, iyadoo ay jiraan shaxdan bariga dhexe ka socota markay timaado xagga siyaasadda caalamka. Ruushka ayaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay, hase ahaatee marnaba shaxda kama maqnaayo. khabiirkan kusoo gabagabeynaya. waa hagaag aad baa u mahadsantahay Maxamed Daawudeel, adikana aad baa u mahadsantihiin. inta ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijkii falaqaynta wararka. waxay naga xasuusinaa daawadayaal haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan nagu xirnayn kusoo biira baraheena kala duwan internetkana ku leenahay. inta ku kulmi doona barnaamijka midka ku xiga insha Allah.